gudoomiyaha shirkadda dhismayaasha casriga Ifcom Construction Company Engineer Awil Ali Hussein waxa uu dhammaan ummadda muslimka ugu hambaleeyay munaasabadda Ciid ul-Adha sidoo kale waxa uu fariin u diray macaamiisha shirkadda Ifcom Construction Company maamulka howlwadeennada iyo dhammaan shaqaalaha Ifcom Construction Company waxay hambaliyay bogaadin u dirayaan shacabka Somaliland ummadda Soomaaliya ku hadasha iyo dhammaan shucuubta caalamka iyo shucuubta Islaamka waxaan leenahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciideeda ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo ammaan mar labaad waxaan leenahay macaamiisha Ifcom Construction ciid mubaarak waxaana uu sidoo kale macaamiisha kale ugu bushaariyay in shirkadda dhismayaasha casriga Ifcom Company ay soo kordhisay dhismayaal casri ah oo tayadoodu sareyso Ifcom Construction Company waxay leedahay macaamiisha gaarka ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak insha Allah ta'ala waxaan jaahaynaa soo kordhinay adeegyo casri ah mashqada casri ah oo na jaan qaadaya waqtiga la joogo amaana buuxda iyo dhisme tayo iyo qurux leh iyo ballanta waqtigeeda lagu dhameeyo insha Allah ta'ala الحمد لله معاميش Ifcom Construction Company kuwa soo socday ku haraba ciid mubaarak waxay ciidan ciideeda ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad qab assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh shirkadda Ifcom Construction Company waxay ka mid tahay shirkadaha dhismaha ugu ballaaran ka wada deegaanada Somaliland waxaana ugu soo hagaagaysa nashqadihii ugu dambeeyay dhismayaal bidicoodu sareyso iyagoona leh raandis aad tayadoodu u sareyso Ifcom Construction and Contracting Company ugu kaalay adeeg ku raali geliya qiimo macquul ah ballan sugan qalab casri ah iyo dhisme qurux iyo raadis lagu ma jarto waxaad sugaysaa kaalay imika dalabkaaga u sheego Ifcom Construction and Contracting Company